waan ugu faraxsanahay inaan ugu dambeyntii la kulmo Caashi iyo Cismaan cunugooda cusub waan si aamin laahay inay isla markiiba jirsatay 2 isbuuc wax fiican ayay ahayd inay nagu martiqaadaan booqashadoodii waxaana rajaynaynaa in Caashi iyo Cismaan aysan wax dhib kala kulmin cunugoodii ugu horeeyay waan xasuustaa san ugu daalnay Maxamed Balihii hore ما شاء الله بيبي واكنا يا هذا وقرحون يا هاي ما شاء الله سنتي فريسة معانتو أنا كي راسرة تقلنا يا في أنا بعنت ما أنت هذا أذكر شاعر هيا ما قوي على وش هذا دوي وين أتبقى بلودات هاي هذا محمرة لح بلود مركز يقدم بيسعونه جاي هره هذا وديره لكن هذا بحكم ليس إنه آد بصوت خصناء waxaan rajeynayaa aniga inaan cunugayga ii karo aamina ma uur baad leedahay hambaliyo cunugayga kugu horeeyay baay waxaan ogaanay ma haddaad ogaatay ninkaaga ku faraxsan yahay aad ugu faraxsan yahay isbuucii hore naloo sheegay waxa ay dhiman hadda 8 bilood aad u faraxsanahay aad ayaan u faraxsanahay khadij adiga caafimaad qab ayaa ka muuqda sidee ayaa caafimaadka uga shaqeysaa inta uurka leedahay aniga dib waa gaajoonay waxa ka baqay inaan si cayilo wax badan ayaan ka bartay cunugii igu horeeyay uurkiisa marka goortan aad ay u fududahay inaan socsocdo oo jimicsado ugu yaraan 3 ilaa 4 jeer isbuuci waxaan isku dayaa inaan si wanaagsan wax u cuno nafsadeyda intaan cunuga awgeed waxaan kaloo bartay inaan u baahnayn raashin dheeraad ah waxa kaliya oo rabaa macmacaan dheeraad ah maalinkii waa inaan cunaa cunto caafimaad keenta sida liin bambeelmada iyo lowska ama buskud engegan oo qamadiga ka samaysan iyo cambo jeexjeexan dhakhtaradeyda Dr. Rose ayaa si fiican wax igu faahfaahisay waxaan kugula talinaynaa inaad wax cunto 3 ama 4 jeer maalinkii subaxdii waxaa muhiim in lagu quraacdo cunto ay dufan tamar iyo nafaqo ka kooban yihiin waxaad cuni kartaa ukun biyo lagu karshay oo lagu cuni karo rooti qamadi ka samaysan sababtoo ah rootiga midabka dugulka ah iyo kan qamadigu waxay ka caafimaad badan yihiin rootiga cad iyo qayb qudaarta ka samaysan iyo shaah waana cuni kartaa waxaad kaloo cuni kartaa 1 xabo canjeero oo qudaar la socota iyo shaah qadadii waxaad cuni kartaa bariis digaag ansalaato qudaarta karsanta oo isku laaban iyo mooska cashadii waxaa cuni kartaa malaay bataatiga macaan salar barakooli iyo rooti qamadi ka samaysan intaad uurka leedahay waxaa habboon in aad cunto hilibka baruurta ku yar yahay sida digaaga iyo malayga intaad cuni lahayd hilibada cayilka badan sida lo'da iyo ariga dhammaan cuntooyinka la cuno mar walba waxaa muhiim ah in la cuno cunooyin kala duwan waan gartay cabitaan maxaan cabi karaa taasi waa su'aal fiican macaano ayaad cabtaa maya runtii caanaha halkan way ka duwan yihiin kan wadankan ku cabi jirnay marka qaarkood caloosha iga dhiban waan fahmay haddii caanuhu dhibaan calooshaada marka waa inaad isku daydaa ciirta ama caanaha soyga ah waa muhiim inaad hubisaa in ciirta iyo caanaha soyga ay leeyihiin kalsiyam oo ah fitamiinka lafaha iyo fitamiin D oo asagana fitamiinka lafaha ah marka sidaas waxaad ka helaysaa fitamiinyada muhiimka u ah si aad cunug caafimaad qaba u dhali lahayd waayahay waan isku dayi karaa intee ayay koobabkaagu la egyihiin aad ayay u weyn yihiin haddii koobabkaagu aad u weyn yihiin marka waa inaad isku daydaa inaad cabto 3 ilaa 4 koob oo dhaadheer maalin walba haddii aad haysato koobab yaryar waxaad u baahan tahay inaad biyo badan cabto sidoo kale waa inaad kuwa badan cabtaa haddii qoraxdu kulushahay kuleel badan banaanka ka jiro waayahay waan isku dayi karaa inta awoodeyda haa waayahay waxaa cuntaa cunto nafaqo leh iyo cabitaan kugu filan ma aha saas oo dhan inay usii kala duwanaadaan sababtoo ah uur ayaa leedahay waa run waxba sidaas uma kala duwana miyaad ka heshaa wax walba ood u baahan tahay cuntada fitamiino xataa miyaa qaadataa maalin walba Dr. Rose ayaa ii sheegtay siday muhiim cunugayga iyo aniga noogu yihiin fitamiinada dhalmada ka hor la qaato
waxaan maqlay fitaaminada dhalmada ka hor la qaato inaad ku cayili kartid oo xanuunna kugu dhalin karaan. maya run ma ahan in fitamiinada aad ku cayisho. Dr. Rose waxay ii sheegtay haddii uu fitamiinada ay xanuun kugu dhaliyaan waxa xanuunkaas dhimi kara inaad qaadato intaadan seexan iyo kadib markaad cunto. waxay kaloo tiri cabitaanka biyo ama caano kugu filan waxay iga caawinayaan laqada fitamiinada. waa inaad bilowda qaadashada fitamiinada durba. walaasha ma aynan qaadan fitamiinka dhalmada ka hor markaasna waxay ogaatay in birtu ku yar tahay inta ay uurka leedahay. marka dhakhtarku wuxuu yiri waa inay fitamiinka dhiiga ee birta iron qaadataa si aynan khatar ugu noqon iyada iyo cunuga. waayahay waxay ila tahay waa inaan fitaaminada dhalmada ka hor la qaato aan si degdeg ah u qaataa. waa inaan qaataa maalintii hal mar. laakiin waxaan ka walwalsanahay in anigii cunuga markuu cunuga soo baxo kadib aan caafimaad qab ku sugnaanayno cunugana uu helay nafaqada u baahnaa. way adag tahay markaad hooyo cusub tahay ka fikirka waxyaalahan oo dhan mar walba aad baan u daalanahay laakiin umlasadayda waxay igu tiri waxa ugu fiican cunugayga u qaban karo waa inuu caafimaadkayga daryeelo cunto fiican iyo fitamiinaad qaata. waxay igu tiri sida ugu fiican oo cunuga waxa weeye in naas la siiyo ilaa 6 bilood oo ka gaaro oo aanan siinin caanaha badada iyo cunnada kale. caanaha naaska aad ayay ugu nafaqo badan yihiin oo waxay siinayaan wax walba cunugu u baahan yahay. waan ogahay inuu quraanka nafarayo inaan naaska nuujino cunuga ilaa 2 sano. ma ku filan yahay caanaha naaska cunuga? umulsadeeda aad ayay ugu fiicneed faahfaahinta arrintan. caasha naas nuujintu aad ayay ugu fiican tahay caafimaadka cunuga. waxay kaa caawisaa cunuga inuunan xanuunsan oo caanaha naasku waxay u ka helayaa wax walba oo u caafimaad ka heli karo dhallaanku ugu horeyntaba. xataa kuwa biyaha ah caanaha ka horeeya ee yimaado 2 bari hore looguna yeero dambarka hooyada waa kuwa aad ugu nafaqo badan cunuga. naas nuujintu waxay dhimaan cunuga halista uu ugu jiro infekshanada dhagaha, neefta, cayilka daran, sokorta, shubanka iyo infekshanada la xiriira neef qaadashada. waa ogahay in dad qaar ay moodayaan inuunan ku filnayn caanaha naaska cunuga oo ay u baahan yihiin siinta caanaha budada ah. laakiin cunugaagu uma baahna caanaha la qasay ee budada ah haddii aad siin karto naas mar walba uu baahan yahay. tani waxay hubinaysaa in cunuga ceylkiisu uunan darnayn ama caato noqonin. haddii aad ka walwalsan tahay cunugaagu inuu helayo fitamiino ku filan iyo in kale waxaa la xidhiiri khuburada ku takhasusay naas nuujinta ee jooga rugta caafimaad ama isbitaalka si ay kaaga jawaabaan su'aalaha aad qabto. waxay dhakhtaradeyda ii sheegtay isla sidaas. waxay kaloo tiri naas nuujintu in cayaalka badan iga dhimo dhalinka kadib taas oo iga yareynaysa halista sokorta, kansarada qaar iyo walaaca kadib markuu cunuga dhasho. wuxuu kaloo naas nuujinta iga caawin karaa inaan caruurta aan kala dheereeyo. naas nuujintu waxay kale kaa caawin kartaa inaad waqti u dhaxaysiiso uur qaaditaanka. si naas nuujinta kaaga caawiso inaad ilmaha kala dheereyso waa inaad 3 waxyaalood la timaado. haddii aadan dhammaan la sameynin uur kale ayaad qaadi kartaa. ugu horeyntii cunugaagu waa inuu kaa yaraado 6 bilood. tan labaad waa inaad si xawli ah u naas nuujisaa taasoo loola jeedo waa inaad cunugaaga naasiis mar walba uu u baahdo oo aadan siin caanaha budada ah, caanaha naaska ee cagaaga ku jira iyo cunto kale ama cabitaan kale. tan saddexaad waa in aadan bilaabin dhiigkeenkaagii mar kale dhaliinka kadib. markii uu gaaro cunugaagu 6 bilood haddii aad naas nuujintu joojiso ama aad caadada hesho habka ilmo kala dheereynta kuma shaqaynayso. sida waxyaalaha kale ee cunug walba muddadiisa lagu kala dheereeyo arrintan 100% uma dhaqan gaasho. dumarku waa kala duwan yihiin. adiga iyo cali waa inaad sidoo kale kasii fikirtaan sidaad caruurta dhalitaankooda u kala dheereyn lahaydeen ka hor xataa inta uunan muddadan dhaqan gelisan shaqayn weyday. waxaan arrintan kuusii faahfaahin doonaa baaristaankaaga well child kadib markuu cunuga dhasho. waaw waa hubaal inaan qorsheynayo naas nuujinta cunugayga. waxaad moodaa inay faa'iidooyin badan noogu jiraan aniga iyo cunugaygaba. aadaan uga faraxsanahay saaxiibo idinkoo kale arrintan hore u soo maray si aan uga faa'iidaysto. waa mahadsantihiin labadiinaba. makeena anshax soo cabnee labadii
soo dhawaada khiyaarta sharafta leh. adoonahay aada u mahadsantahay. Marka Cusmaan oo nin nasiib leh ayaa tahay maadaama kuu dhashay ilmo waana kaagii kugu horreeyey waxaadna baranaysaa in ay dhib badan tahay ayna shaqo badan tahay. aad baan u nasiib badannahay waana ilaahay mahadiis. mar haddii gabadhii iyo cunugii ay caafimaad qabaan oo ay qurux badan yihiin laakiin hawshu waa ay ka dhib badan tahay sidii aan moodnay oo cunugu labadii saacba mar buu kacaa aniga iyo caashane labadii toddobaad ugu horreysayba waan daalnay. laakiin caliyo waxaan ku weydiiyey hadda cunug baa haysataay hadduu dhowr bilood kadib cunug kala yimaado sidee baa u kala maaraynaysaa? diyaar ayaan u nahay haatan cunug kale laakiin ma dhalayno waxyar kadib. marka uu dhashay Maxamed waxaan go'aansanay in aan caruurta kala dheereyno sababtoo ah dhakhtarkeena ayaa noo sheegay in ay aad ugu caafimaad badan tahay hooyada haddii 2 ilaa 3 sano dhaliinka kadib ay uur kale yeelato. oo waxaan rabnaa in aan hubino in aan helno waqti fiican oo aan labada cunug ku siin karno daryeel wacan si ay ugu waaraan caafimaad iyo farxad. okay cali waxaan leeyahay 5 caruur ah oo caafimaad qaba waxayna kala weyn yihiin 2 sano wax ka yar runtii. waa inaan dhalnaa intuu ilaahay noo qoray. ma aha inaan isticmaalno waxyaabaha caruurta joojinaya dhalmadooda laakiin diinteena way ka soo horjeedaa joojinta caruurta ama dhalmada. arrinkani xataa waa ka fikirayay xasanow waa sababtaas mid aan aniga iyo xaaskayga Khadiijo u aadnay imaamka si aan ugula hadalno caruurta kala dheereentooda iyo waxay diinteenu ogoshahay in aan suubino. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. marka hore waad mahadsantihiin jazakum allahu khayran inaad soo booqataan markastana way wanaagsan tahay markii arrintu ay tahay arrin diin ah in culummada islaamka loo tago oo su-aalaha la weydiiyo waayo diinta waa noloshii qofka muslimka ahayd wixii sax ah wixii khalad ah ilaaha sheegay ama rasuulka sheegay. marka waxaan ku bilaabanaynaa ilaahay wuxuu yiri dan marka waxaan ku xijinaynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay arrimaha kala fogeynta caruurta ama kala nidaaminta. suuratul baqara ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur'aan 233 ilaahay wuxuu leeyahay uu ku bilowday walwaalidaat yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn. aayaddaasi macnaheeda waxaa weeyaan ilaahay wuxuu leeyahay haweenkii ilmahooda ha nuujiyeen 2 sano oo dhammaystiran. marka xigmad ayaa ku jirta 2 sano kaliya ilaahay wuu dhihi kari laakiin oo dhammaystiran waxaa loola jeedaa in 2 sano la buuxiyo inay manfacad iyo faa'iido ay ugu jirto caruurtii. marka halkan culimadu waxay ka dhaxeeleen fawaa'id fara badan. kow ilmihii ayaa waxay u korayaan koriimo sax ah xubnahoodii jirkoodii maskaxdoodii organiskoodii intaasoo dhan ayaa samaysmayo marka ay helayaan naaska caanaha hooyada. caano la dhigma ma lahan ilaahay saas wuu amray. talabaad 2 sano inay dhammaystirnaato culimada qaar xitaa waxay dhaheen koriimada ilmaha ee hore 2 sano dhammaystirmayso haddii caanahaasi ay maqan yihiin ma dhammaystirmayso caano buuxin karana ma lahan. taa waa ilmihii faa'iidadooda. faa'iidada kale ku jirta waxaa weeyaan ilmihii kale imaatinkiisa ilmahan space ayaa u dhexeynayo. taana waxaa weeyaan ilmaha maslaxadooda ilmaha kaloo imaan doono. maslaxad kale hooyada dhankeeda 2 sano ay nuujinayso nasashay u tahay. maslaxad saddexaad aabbaha iyo hooyada waqti isku helayaan ay ku wada hadlaan ay ku wada sheekaystaan ay maaragtay noloshoodii iyo wixii khusuusiyaadka iyaga u ahaa ay ku dhamaysan karaan isla markaasna faamilka xiriirkiisa uu sii xoogeysanayo uu sii adkaanayo. faa'iidada kale ku jirta waxaa weeyaan caafimaadka hooyada intii wax nuujinayso culummada dhakhaatiirta waxay sheegeen caafimaadkeeda 2 sano oo kale inuu horumar weyn uu sameynayo jirkeeda dib u soo noqonayo awoodeeda dib u soo noqonayso maaragtay strength ama waxay yeelanaysaa maaragtay awood fiican
oo ay ku noqon karto maamo sax ah waxna tarbiyan karto nolosheedana ay maareyn karto nolosha odaygeedana ay maareyn karto gurigana ay maareyn karto waajibaadka saaran midda ugu dambayso faa'iido badan iyadana waxaa ka mid ah maaragtay haweenka qaarkood markasta waxay rabaan sida culummada islaamka ay ka hadlaan waxaan purely quruxdooda inay maintain gareeyaan marka haddii oo hooyada sanad kasta ay dhalayso quruxdeedii oo ninkeedii iyaga cilaaqadii sii xoojin lahaa waxaa laga yaabaa inaysan helin marka si ay u hesho xitaa quruxda cilmadu waxay dhaheen faa'iido kalaa ku jirta oo ah markii 2 sano ama 3 sano oo kale ay u dhaxayso quruxdii hooyadaa soo laabanayso intaasoo faa'iido marka loo fiiriyo xag caafimaad xag social ijtimaaci ah iyo xag maaragtay caruurtii iyo mustaqbalkoodii kuwa imaan doono rasuulka calayhi salaam isagana xadiis ayaa waxaa jiro tilmaamaya waqtigii rasuulka asxaabta ragga way ka leexin jireen biyahooda haweenka way ka ilaalin jireen taasoo loola jeedo maaragtay ilmihii maaragtay in loo dhexaysiiyo space xadiis taageeraya weeyaan waxaana dhaheen rasuulka weligiisa ma uusan diidin arrintan tan waxay xoojinaysaa nebiga laftigiisa inuu ogolaa calayhi salaatu wasalaam marka bulshada muslimiinta ah ama qoysaska ilmaha way kala durkin karaan way kala nidaamin karaan laakiin waxaa la xarimay oo la diiday inay xadido haweentii ama qoyska ay yiraahdaan ilmo ma dhalayno ama hal kaliyaan dhalayna taa ayaa la xarimay walle marka kuma hor imaanayno sharciga alleh haddii aan caruurta rabno inaan kala dheerayno miya maya xaaskaygu waxay daryeelaysaa jirkeeda taasina waa mid diinta na farayso waa dhali kartaa 5 caruur ah laakiin iyada iyo caruurteeda waa ay caafimaad badnaanayaan faraxsanaanayaan markii la kala dheereeyo macaasho waxay qaadanaysaa daawo ilmaha kala dheeraynayso maya waxaan kala hadlay Dr. Rose siyaabo kala duwan ee lagu kala dheereeyo caruurta waxaa jira noocyo badan kuwa qaarkood waa dabiici waxay noo ogolaatay in aan doorano tan noogu wacan annaga waxaa jira qaabab badan oo aad ilmahaaga u kala dheerayn karto hore ayaan uga soo hadalnay si xawli ah inaad u naasnuujiso si aad ilmaha u kala dheerayso wax yar kadib dhaliinka midda kale ee dabiiciga ahi waa saadaalshi oo cyclobeads ay dhahaan waxay kaa caawinayaan daboojiga miraha dhalinka oo kuu sheegayaan markay u badan tahay inaad uur qaadi karto iyo marka aadan qiyaastii uur qaadi karin waxaa kaloo jira maadooyin kale oo hormoon iyo hormoon la-aan ah waxaan haynaa wax looga yeero IUD ama birta makaanka la dhex dhigo ilmo galeenka oo aan kuugu gelin karno xafiiskeena aad ayay wax u taraan oo waxay u dhaxaysiyaan kartaa waqti ah 5 ilaa 10 sano caruurta iyadoo ku xiran kii aad doorato hal IUD wuxuu leeyahay hormoon hal IUD kalena hormoon ma lahan oo wax aan bixin karno mar kasta oo haddii 2 sano ama 3 sano kadib aad rabto waxaad qaadi kartaa uur isla markiiba waxaad kaloo qaadan kartaa kaniini maalin kasta ama cirbad lagugu duro dhowrkii bilood kuwaani waa qaar ka mid ah jidadka ku bannaan waxaa jira qaabo badan qoys walbana midda uu rabo asaga ayaa dooran karo isagoo misana ogaan kara waxaan diinteenu ka hor imaanayn aad baan ugu faraxsanahay runtii cunugeena laakiin annagu haatan iyo mar dhow ma dhali doono cunug kale cali laakiin waxay ila tahay inaad dhali doonto caruur badan sideeda oo kale iska sugo arag waana fikrad wanaagsan in caruurta la kala dheereeyo adigana waxay ila tahay inaad 5 caruura dhali doonto sideeda oo kale insha Allah السلام عليكم عاشا سيدات هاي وحاضر اكتر قف دالن hooyo habeenkii waan fiicanahay habeenkii un baanan helin waqti aan ku seexdo maalintana meel waqti aan ku nasto maqaliika ku mariya baa kaa dhiga marid meesha layga qalo way bogsanaysaa umulsadeeda waxay igu tiraahday meesha qalan iska ilaali si cangari kaaga furmin tani waxay kaloo dhici kartaa haddaan uur kala qaado waa lagu qala cunuga soo maaha waa ka cabsanaya anigana inaan ku qasbanaado in la qalo haa waan maray qalin sidaasa intaan foosha ku jiray umulsadeeda waxay tilmaami kartay in uu cunuga si qalada uurka ugu jiray oo ay kala foortay
waxay igu tiraaday si nabad uma dhali kartid haddaan lagu qalin marka waxay u yartay dhakhtar si uu qaliinka C sectionka ii mariyo waan cabsanayay laakiin waxaan doonayay inaan aniga iyo cunugaba aan badbaadno ma ahayn badbaado Soomaaliya qalinku halis ayuu ahaa waxaa laga yaabaa haddii aad ilmo kala dhasho inaad caadi aanad u dhalin waxay umulsadayda ii sheegtay intaan ku guda jiray qaliinka Mareykanka inuu yahay mid nabdoon markii loo fiirsho kan Soomaaliya hooyooyinka waa ay dhali karaan kuwa kale qaliinka kadib oo qaliinkan wuxuu badbaadin karaa hooyooyinka iyo carruurta noloshooda haddii cunuga isrago sida kayga oo kale waxaa jira dhowr siyaabo oo kala duwan oo dumarku ay ugu baahan karaan qaliin caasha ugu horeyn waxaan ilaalinaa cunuga wadnihiisa xawligii ku socdo iyo booskiisa haddii uu xawliga wadnaha cunuga yahay mid hooseeya ama haddii uu cunuga uu kala foorarmo markaas waxaa loo baahan karaa qaliin si loo badbaasho cunuga tan labaad waxaan baarnaa caafimaadka hooyada haddii dhiigkarka hooyadu aad u sare maro ama haddii hooyadu mataano ama ka badan filayso oo hawshu adkaato waxaa markaas iyadana loo baahan karaa qaliin ugu dambeyn qaliinka waxaa la sameeyaa oo keliya markii ay muhiim tahay dhakhaatiirtu lacag dheeraad ah kama sameeyaan haddii ay qalaan dhakhtarkeena waxay noo sheegtay arrimahaas waxaan jecelahay ogaashada xaqiiqooyinka waxaan aaminsanahay in dhakhtarka Dr. Rose ay nagu caawinayso go'aanka fiican mar walba oo aan cunug dhalayno waa tahay laakiin waxaan rajaynayaa inaanan qaliin marin haddii dhakhtarku ii dhaho waa inaan ka fikiraa hadda waxaan ogahay waxaan su'aali lahaa iyo waxaan ka fikiri lahaaba caasha adigu qaliin ayaa martay ilmo caafimaad qaba ayaa dhashay taas ayaa muhiim ah taasaa hooyo muhiima oo midkiina wuxuu ka walwala aanu lahayn anigu hooyo waxaan kugu dhalay Soomaaliya oo aan lahayn cusbatalo iyo dhakhaatiirtan oo dhan hooyo nasiib ayaad leedahay halkan aad joogto mar walba waxa adiga iyo ilmahaaga ku wanaagsan wixii aad ku badbaadaysaan mar walbana waxaad dhalaysaa ilmo qurux badan oo caafimaad qaba taas ayaa muhiimadda ah waxaan malaynayaa inay gaajoonayso aan soo quudinayaa cunugooda aad u qurxoonaay aad u fiicnaad in la is arko ma qaadatay waqti fiican haa waxaan ka hadalnay sida caruur korinta ay u adag tahay waa tahay laakiin waa shaqo fiican waxaan rajaynayaa inaan diyaar u nahay inaan sameyno sidaan 3 bilood kadib waxay ila tahay inaan baranay wax badan haddana waxaan aad uga shaqaynayaa inaan caafimaadkayga daryeelo intaan uurka leeyahay iyo barashada sidaan caafimaad ku lahaan karo kadib markuu cunuga yimaado sidoo kale ma ogeed in aamina uur leedahay waxaan ka hadalnay waxyaabaha caashiyo aniga aan baranay maanan ogeen waa arrinka farxisa cunugoodii ugu horreeyay ragga iyo aniga waxaan ka hadalnay sida carruurta loo kala dheereeyo iyo sida ugu bannaan xagga diinteenna waxay ila tahay in Cusmaan uu ku faraxsanaa arrinkani uu maqlay sababtoo ah durba wuu daalanaa waxaan ka fakiri karaa sida aan u daali doono markii uu cunuga kala yimaado anigoo kala dheereynaya waan ku faraxsanahay inaan kala dheereynayo sidoo kale 2 sano kadib jooji hal cunug markiiba